anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta wuxuu i amray wasiirka arrimaha diinta inaan soo dhoweeyo aan bogaadinno haddii aynu nahay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta aan u sheegno inaan garabkiisa nahay inaan la shaqaynayno qowl iyo ficil carab iyo aan kula shaqaynayno gacan iyo garab aan kula shaqaynayno culummo iyo caamo aan kula shaqaynayno shacbi iyo xukuumo aan kula shaqaynayno intaas ayuu wasiirka wasaaradda awqaafta ayuu yidhi halayga gaarsiiyo guddoomiyaha gobolka waxyaabaha uu ka hortegey wanaagga uu sameeyey guddoomiyaha gobolka waa mas'uulka gobolka banaadir dhinac kasta asagaa mas'uulka ah waxaa loo baahan yahay in lagu taageero loo ballan qaado in lala shaqaynayo wuxuu sameeyey raddulficli alqabiix ficil xun iyuu radiyey hagradiye wuxuu ku radiyey ficilkaas wax u munaasib ah ayuu ku radiyey waxaa weeye inuu la soo baxay dhangadiisa iyo ushiisa oo ka haybad yarayn diradii cumar binulkhadaab sidii diradii cumar binulkhadaab ushii cumar binulkhadaab haybadda u lahayd ayay haybad u yeelatay guddoomiyaha gobolka ushiisa guddoomiyaha yuusuf waa mahadsan tahay culummada waa kugu garab taagan tahay waa arkaysaa waa u jeedaa dhinacayga midigtaa waa arkaysaa dhinacayga bidixdaa dhammaan waa arkaysaa inta iga soo hor jeeda waa arkaysaa inta maqal waa inta arkaysaa meediyaha iga fiirsaysa waa arkaysaa inta meediyaha inta furata ila socota intaasoo dhan waa kugu taageersan yihiin waa malaayiin ma aha shaksi mar alla markaad hawshaas aad qabanaysana waxaan diyaar u nahay xataa inaad inta noo yeerato intii aad ka gaari karto walow ay mararka qaarkood xaadisa ahaan u dhacayaan dhegdheg oon laga gaari karin in dad loo yeero ee markaas in gacanta lala gala ay noqonayso sidai xala dhacday oo kale waa kaaga mahad celinaynaa waa kugula safannahay waa ku garab taagannahay waxaan ku leenahay sidii maxuu ay asxaabti ay nabiga tiri low khulta binaa hada albaxra lanaquudannahu macak haddaad baddaa nala dabaalata annagana waa kula dabaalanaynaa garabaad u haysataa ummadda soomaali inta xumaanta necab oo diinta islaamka jecel waa kugu garab taagan yihiin waa kula shaqaynayaan inta doonaysa inay ficilkaas tarmiyaan ama tanmiyaan waxaan leenahay ka noqda waxaa idinku dhici doonta larba qaadiya larbad garaacitaan xumaan badan baa jirta fisqi badan baa jira dad ganacsato ah oo xoolo alla siiyey oo hoteello leh ayaa waxaasi saacida ama ka shaqeeya arrintaasi waxay ku soo noqonaysaa dhibaatadeeda mujtamac oo dhan kan gurigiisa masaajidka ku tukaday gurigiisa seexday ka badbaadi maayo haddii aan la iska qaban oo waxaa waaye inta xumida wadda inta yacni wanaagga wadda haddaan maxay ahaydoo ka hortegin inta xumida wadda waxaa waaye waxoo dhan hadhowto ciqaabtu dadkoo dhan bay wada camimaysaa sidaa aaweed waa maqlayseen aayaddii hadda sheekha uu sheegahayey reer banu israa'iil markii la ceebeeyey oo la halaagay alle wuxuu ku yidhi kaanuu laa yatanaahuuna can munkarin facaluuh iskama reebi jirin dadkaasi xumida dhexdooda ka socota iskama reebi jirin waxa loo ciqaabay loo fasaadiyeyna waa sidaas oo kale waxaa waaye haddana jaraa'imta way kala daran tahay waxaa waaye waxyaalahan oo khamriga iyo waxaan lagu wareero waxaa waaye amnigay wax yeelayaan nabadgelyaday wax yeelayaan islaamnimada iyo diinta iyo habsamiday wax yeelayaan
ilmaha yar ee soo koraya mujtamaca ayay fasaadinayaan waxa waaye guri kasta ay dhibaatadaasi tegaysaa waxa waajib ah in maxay ahaydoo aan looga sugin maxay ahayd mas'uulka kaliya walow mas'uulka uu waajibka koowaad uu saaran yahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay mujtamacoo dhan inuu munkarka la dariro oo ninna waxa la gaarsi waxa waaye darajadiisu qalbiga ka nacaa la yiri tabar ma haye ninna waxa la yiri afka ha ka hadlo ninna gacanta ha ka hadlo yani gacantiisu ha shaqayso munkarkii gacan ha loo tago nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu tilmaamayaa kan ku taagan xuduud ilaahay ee xuduud ilaahay ilaalinayo wuxuu la mid yahay iyo kan xuduud ilaahay ku dhaxdhacayo waxay la mid yihiin dad doon raacay oo kale doon bay u qori tuurteen qaarna waxay heleen qaybta sare qaarna qaybta hoose doonta laba dabaq ay ka kooban tahay kuwii marka dabaqada hoose saarnaa hadday yiraahdaan anaga doonta ayaan dilaacinaynaa biyaha hoos aan ka dhaansano biyaha anagaa noo dhow hadday kuwii kor saarnaa ay ku fiirsadaan maxaa dhacayo doontii inay biyo gasho oo doontii kuwii hoose iyo kuwii sareba ay wada baaba'aan ay wada maashoodaan laakiin kuwii dabaqa sare saarnaa hadday yiraahdaan waryaada joojiya doonta ha duleelinina haddaad duleelaysaan waa wada maashoonaynaa oo gacmahooda ay qabtaan way badbaadayaan doontana dhammaan way wada badbaadayaan marka bulshada saasay la mid tahay dadka xumaanta samaynayo ee xuduudda ilaahay ku dhexdhacayo daroogada iyo balaayada iyo fisqiga iyo fujuurka iyo macaasida samaynayo liida iyo goob walba ay kula taagan yihiin haddii laga aamuso waxaa dhacayo bulshada inuu baaba'o mujtamaca inuu burburo ma arkaysaa dagaalo inay dhacaan waxyaabo dhibaatooyin awaaro waxyaabo badan baa dhacayo laakiin haddii la helo dad u kaca arintaas dadkuna ma saddex dabaq weeyaan dabaqada koowaad dad gacan ku burburin kara sida ilaahay dadka awoodda siiyayo ulul amriga ah arintii xalay madaali sameeyay oo kale waad arkayseen yacni bil gacan oo la dhacay marka arintaasoo kaleeta yaa taladeedii iska leh kuwa ulul amriga ah waxaa ku xiga dadka awoodda aan la heyno afka ku hadlayo culimmadii oo kaleeta inay arintaa si fiican ay uga hadlaan oo meel walba masaajidada khudbooyinka ay ka caddeeyaan arintaa fisqiga la samaynayo xaaraam inuu yahay in laga hortago waar dadka daroogada keenayo waxaad ka daran tihiin kuwa sun iyo keena ummadda ku buufiya waxa baaba'aya waa ummad Soomaaliyeed waa dhalinyaro Soomaaliyeed wiilkan daroogada qabaya ama gabadhan daroogada qaadanaysa waxa weeye nimaa lacag ku soo iibshay oo keenay waa ka daran yahay qofka bamba atomic ku dhufanaya shacabka ku dhufay waa ka xun yahay alf marra maxaa yeelay waxaaba dhici karta in dadka badbaadaan laakiin dadka ka dhigaya niya daawada keena ku sumaynaya dadka ee saad aragtay yeelaya ee dadku xoola ka hoos ay naqanayaan oo qofka uu iska socdo oo dhimanan noolayn dadka waxaa keenaya waxaan leenahay ilaahay ka baqa bulshadiinna u tura ka jooga mustaqbalkiinna u naxa ma falaaxaysan ma liibaanaysaan dadka waxaa keenaya waxaan aad iyo aad u soo dhowaynaynaa oon ugu farxaynaa tallaabadii gobolka banaadir oo qaaday xalay oon ayidaynaa waxaan leenahay meel fiicanaad ka bilowdeen meeshaa ku sii socda ummadda islaamka waxaa lagu yaqaan inay leedahay dad istaaga oo xumida la dirira wanaaggana fara ilaahay wuxuu yidhi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani almunkar waulaa'ika hum lmuflixuun war adinka hayda ka mid noqdaan dad ma arkaysaa macruufka iyo waxa wanaagsan oo caqliga iyo sharciga ku wanaagsan dad amraya waxa xun oo caqliga iyo sharciga ku xunna reebaya haydan ka mid noqdaano dadkaas ilaahay wuxuu yidhi dadka liibaanay oo adduunyada aakhira liibaanay weeyaan soo markaysa tan kale ummadihii naga horreeyay reer bani israa'iil waa la lacnaday ilaahay waa lacnaday maxaa loo lacnaday lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daa'uuda wa ciisa bni maryam dalika bimaa casow wa kaanuu yaxtaduun maxay ahaayeen waxaa la lacnaday nabi daa'uud iyo nabi ciise soo ma arkaysid
ayaa lagu lacnaday reer bani israa'iil ali way lacnadeen maxay u lacnadeen kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu waxay ahaayeen reer bani israa'iil munkar ay samaynayaan kuwa aan iska reebinay ahaayeen munkarka dadka reebi kara waa dadka yaqaan inuu munkar yahay waa dadka yaqaan waxaan inay macruuf yihiin soo markaysin haddaan taas samay weyno waa ku halaagsamaynaa ummadda islaamka tiirarkeeda waxaa ka mida oo ugu horraysa dad hadday mas'uuliyiin noqdaan inay waxa wanaagga sameeyaan waxa ilaahay raalli ka yahay inay sameeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi aladiina in makkannaahum fi lardi aqaamuu salaata wa aataguu zakaata wa amaruu bilmacruufi wa nahow can ilmunkar waa kaa haddii suldan loo dhiibo dadka mu'miniinta waxaa lagu yaqaan oy awood helaan yah in makkannaahum fi lardi waa inay maamul heleen aqaamuu salaata salaaday ogaan soo marka waa aataguu zakaa zakada waa dhiibaan wa amaruu bilmacruuf waxa wanaagsan oo sharciga iyo caqliga ku wanaagsan na waa faraan wanahow can ilmunkar munkarkana waa reeba waxa la samaynayo oo hoteelada qaarkood lagu samaynayo meelaha malcamadaha qaarkood lagu samaynayo badda agagaarkeeda lagu samaynayo waa munkar يعني من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع waxaa la yiri qalbiga ha ka inkiro oo ha naco shaygi marka culimada markay fasirayeen waxay ku fasireen yaana munkarka gacanta lagu zuulinayo waxa iska leh dawladda iska leh dawladnimada iska leh culimada iyo dadka wax garadka ina afka inay ka nahiyaan oo carabka la dagaalamaan bay leeyihiin qofkii intaas ba midna karin waa inuu qalbiga ka naco marka dawladda in iyada ay shuruuc dejiso ciidan adeegsato booliis adeegsato nabsuud adeegsato maxkamad adeegsato يعني إنه قاعد ودوينك يكون نهيين كرتون أيضا أود وإن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن عثمان بن عفان بايري إلهي سلطة وحو كزوليا كسيبا وحسن القرآن كسيبي كرين لأن القرآن عدي وحو شيء فلنيس وأود وقفك مسلم كوا ملحظ أواي مرك أسجع على جربها إنه أمدان إلاليو مسؤولية دولة وحاولت كان إنه إلاليسو مسكح ذودي كلي يعني شريعة الإسلام كحي أسود دكتيبة لهذا كليات 5 إلاليسا waxaa ugu horeysa diinta dadka in loo ilaaliyo waxaa ku xigta nafta in la ilaaliyo maalka qofka in la ilaaliyo maskaxda qofka iyo aqligiisa in la ilaaliyo yaana cirdigiisa sharaftiisa in la ilaaliyo hatta zinada iyo waxaas iyo kulli cirdiga iyo sharafka iyo waxaas waaye marka waxaas oo dhan kulliyat al-5 oo shariicadu soo degtay inay ilaaliso oo aqliga ku jira marka maandooriyahana wuxuu khatar ku yahay aqliga marka mas'uuliyadka dawladda saaran inay arintaasi ka hortagto oo uu samaysato qaabab ay uga hortagto iyo wasaa'il ay uga hortagto waa waajib dawladda saaran marka dawladda waajibaadka saaran oo tirada badan ayuu ugu horeeyaa inay bini aadamka ilaaliso aqligiisa iyo cirdigiisa iyo naftiisa marka daroogadana ama muskaraadkana waxyaalaha ummadaha kharibo waaye oo ummadaha baabi'iyo waaye oo dhalinyaradii iyo xoogii soo kacay ee dalkan rabay in u shaqeeyaan haddii daroogo lagu sii daayo dalkan xoog badan oo kiisa ah dhumaayo marka dawladda waxaan aad ugu dhiirigelinaynaa inay arintaasi si kasto ay uga hortagi karto iyo wasaa'il kasto ay adeegsan karto qaab walba adeegsan karto inay adeegsato